ready farista 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 ready farista 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 alla faristo alla faristo alla faristo farista idinkoo fadhiya hadla idinkoo fadhiya alla hadlo كراي فراي كان كراي فراي كان كراي فراي فريستا فريستا وحاد البضي فريستا 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 الله فريستو الله فريستو الله فريستو Farista, 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 alla Farista, alla Farista, alla Farista. annaga waxaan matalnaa golaha shacabka Soomaaliyeed matalnaa ayagaan baarlamaanka ugu jirnaa shacabku wuxuu u leeyahay xaq inuu ogaado dawladdiisa iyo xukuumaddiisa shaqada ay hayso xukuumadda waxa laga rabaa shaqada ay hayso in saxaafaddu joogto la dhageysto la maqlo wax la qariyo meeshan ku jira ma jiraan operationska iyo shaqada ay qabanayaan laga rabo magaaladan Muqdisho dhibaatada ka jirta waa ka waraysan 24 saac qarax baa ka socda wasiiradii iyo madaxdii hay'adaha oo la wacay qaarkood ma imaanin sidii taliyaha hay'adda nabad sugidda kusmaha ka qaar waa iska maqan yihiin guddoonka baarlamaanka mashruuca oo soo qaatay ee ah inuu baarlamaanka xiro oo la af xirana mana aqbalayno annaga dadka aan matalnana waxaan ku matalnaa in shacabku oo dhageysto codkeena oo maqlo dadka ayaan matalnaa marka haddii ilaahay yiraahdo saxaafadduna xaq bay u leedahay inay maqasho gudoomiyaha waxaan ka codsanaynaa inuu sharciga aqbalo ixtiraamo dhageysto dadka Soomaaliyeed ee u baahan inay maqlaan xaq bay u leeyihiin gudoomiyaha golaha shacabka way ma aha gudoomiye kooxeed ma aha waa gudoomiyihii golaha shacabka inuu gudoomiyihii golaha shacabka noqdaan ka codsanaynaa oo amni darrada haysato in amniga aan laga hadlin waa diidan dhahay waxa meesha ka socda banka gudoon meesha kuma jiro gudoon ma jiro waa baarlamaanka waa halaabay aad ayuu u liitaa waa arkaysaan sida ay wax yihiin marka shacabkaan misalna annaga shacabkan dhamaanaya waa dadkayna waaye mana yeelayno in la yiraahdo waxaan ka qarinaynaa shacabka dhibka haysto aan qarinaynaa oo meesha miidiyaha waa ka baxayaan waxaan yeelayna ma aha miidiyaha waxaan rabnaa inay joogaan sida wax loo waxeeyeyna waxay ka hor imaanaysaa oo aysan waafaqsanayn dastuurka iyo xoor-hoosaadka intaba marka intaasaan rabaa inaan idiin sheego aad u mahadsan ka waraysaan muddadii u dambaysay wixii ka dhacay dalka weliba caasimadda dalka inay noqotay meel hooy habeen walba dhiig habeen walba guri laga tacsi ay taal saan tacsi u dirayna waa daallay ilaahay wuxuu qadaray maanta sabti in loo ballamo in ajandihii laga hadlo in ummaddii la yidhaahdo meedii xaqa u lahayd oo indhaha u ahayd ha laga xidho waxa weeye wax cadaalada ma aha gudoomiyuuna arrintaa ku khaldan yahay xeer-hoosaadna ma qabo dastuurna ma qabo cid soo jeediisana ma jirto waxa weeye shacabku inay ogaadaan wixii sababay amni darrada dalka ka dhacday annaga ma ka hadlayno ciidan biri duulay oo dagaal qaadaya meel lagu jiro iyo meel laga hadlay waxaanu ka hadlaynaa wixii sababay amni darrada dalka ka dhacday xaq baan u leenahay haddaan xildhibaana nahay bahda saxaafadda waxaan ka codsanaynaa inay goobjoog u ahaato cadaalad maaha qodobkaasuna qodob jira maaha waa joogaysaan xaq baana u leedahay inaad bulshada u gudbisaan askarteedu ma saari karto halkaana joogaysa annaga maanta askar idin ah qodobka xeer-hoosaadka soddonaad iyo qodobka dastuuriga 63 labadaba waxaa la rabaa inay cid soo jeediso annaga xildhibaano aan ahayn 17 xildhibaan baa waxaan ku soo jeedinay in la ka ogolaado sabtideeda in lagu daro ajandaha waana la ka diiday waad ogeedeen meediyo goobjoog baa ka ahaydeen maantana waxaan rabaa ciddii ajandaha wadata inay soo jeediso uga xunnahay in guddoonka baarlamaanka uu garab maro sharcigii u yaallay baarlamaanka iyo dastuurkii lagu dhaqmi lahaa inuu garab maro isagoo u jeedo sharciga
ma waafajinin dastuurkii ma waafajinin xeer hoosaad guddoomiyaha baarlamaanka sharciga sidoo uu qorayo waa inaa asaga xasuusiyaa xeer hoosaadku wuxuu leeyahay 10 xildhibaan iyo ka badan hadday soo jeediyaan in ajandaha wax laga bedelo waa inay codsigooda geeyaan Soomaaliyeed iyo Kenya midna ka gorgortami mayno waxay u diidayaan saxaafadda u saarayaan wax badan ay qarinayaan waxay diidayaan in xaqiiqada la taabsiyo diidayaan marka waxaan soo jeedinaynaa in guddoonka baarlamaanka uu baarlamaanka saxo haddii kale iscazilaan guddoomiye mursal iscazil adiga personally guddoomiyaha baarlamaanka inuu iscazilaan rabnaa from today ma taallo hawsha amni ma taallo maxaa la yidhahdaa waxa uu rabo inuu saxo ma jirto baarlamaankana asaa burburiya cuuryaamiyey waa inuu ka dhaqaajiyaa baarlamaanka